ubadka dirbijiifka abaabul haloo sameeyo adduunka nafbay ku leeyihiin warxama darbiga qalbay ku leeyihiin warxama ogaada amaanadooda warxama magacay waa Xuseen Nasan Mandela oo magaalada Hargeysa jooga oo afayeenka darbijiifka Soomaaliland waxaan ahay hal abuur iyo curiye gabayada iyo heesaha qaada laakiinse waqtigu u saamixi waayay waxaan waraysi gaar ah oo la xiriira noloshiisa hal abuurnimo iyo curin ka qaadi doona Xuseen Mandela oo ah afayeenka darbijiifta magaalada Hargeysa Xuseen kama waraysanayno noloshiisa iyo sida ay tahay balse waxaan ka waraysan doonaa dhanka hal abuurnimada iyo curinta maadaama Xuseen yahay hal abuur iyo curiye nin sameeyo gabayada heesaha iyo sidoo kale maansooyinka bal Xuseen goorma ahayd markii kuugu horeysay ee aad ogaatay inaad wax curin karto ama hal abuuri karto 2010 baan bilaabay waxaan u joojiyay 2011 marka waqtiga ay saamix waayay inaan sii hado hal abuurkayga aan sii wato marka wixii ugu horeeyay ama maansadii ama gabayga ama heesta ugu horeeyay hal abuurtay teebay waxay ahayd heesta la yiraahdo Afrika ubadkayga hallo gurmado Afrika afarteeda dhinac waxa ka baxayo olal ku shiday helkee ku xigay intii isku duubni keento ubadka dirbijiifka abaabul haloo sameeyo adduunka nafbay ku leeyihiin warxama darbiga qalbay ku leeyihiin warxama ogaada amaanadooda warxama caruurta gayga baahan adduunku hasoodayaan taas waxay heestii ugu horeysay ee markii aad bilowday hal abuurnimada iyo curinta waxa jira ma jiraan gabayo ama maansooyin aad tirsay inuu aabihii deeriyo daayacaan ahaayee qaar kale oo ciyaarsiinaya ana dibadda ii tuuriye markuu iduluu duudka hooyada iga dulfuray kuwa caruurta uu jecel yahay anuun baa adiyadan u darane waxaan dib jir ahaadaba mar baan doolal heliyoon daarta cagaha gelin inana hadday qurux leedahay oo qoorta ka hilaacdo markaasaa aroos qaayo weyn loo qotobiyay markaasaa rasaas laga qobaa oo qarani maadaaye markaasay quriga qoyska noqotaaye cali qaawane waa darbijiif waa diblow dhagax ixtirbaad mooda waqtigana uu haraatiyay waa 12 jir cirkaan huwada dhulkana waan gollada wati aabaha ma jirtaa heese kale oo aad qaaday ta kale waxa weeyaan iyaduna hooyadii tihaatee dambarteeda caanaha kaga jaqay dimnahay ka dibire calooshe bam bam dididim bam dindin hooyadii darxumayo tuliyo dhibaatiyo iga dhurtay danane xumayga difaaday waxa tahay dhammaantood wixii daraan iga daadi haysay dabadeeloode dabadeed dushaygu xambaar tahay taasina waa qodob waxa jira heese kala samaysay oo maadaama uu tahay afayeenkii darbijiifta waxa jirta heesaha darbijiifta oo samaysay sama jiraan heesaas maxay oranayaan hidii duruuf adag baan ku koray daryeel hooyana mihelin dadaal aabbana ma arag toliyo xididii damqada dadkana ku malihi walaal waxaanu hoydaa darbiga baahida dacalkayga taal ayaa hadda warsiga bari darxuma badan baan qabaa dubkayga waxaa ku shiidan dabku waayuhu isudhay hal door mar baan lahaa damiirta gambaan lahaa inaan dadka caawiyon digito
door noqdo waan jeclaa waxse la dekaamaya dantiyo waayahay xidhay dulliga nolosheen ku jiro dadaydu markay tagaan dugusiga iyagoo qurxoon ayaan qudha deeq mehelin farxadda waan kala dinaa waxaan gashadaa dirays maryaha duugeen qubtan duxiyooyigan macuno dugaag waxaan qaybsanaa hambada daadisaan barbaadaacun go'ay markay waayin dabiibi qarbay dhaxamuu dileen tufaankii qabowga daran barbaadad soo rogmaday habeen dumayuu la tegay naftooda barbaa bedelay markay dunidii naceen aqoon-yahana maadarsaan xallada derbi jiifku yaal digriga culimada ugo daraalleenooguma hadlan dastuurkuna uuna gabay qoraalkuna uuna tegay dadweynaha uma bandhigo ciilkiyo dacaskaana dhibay waxaan calanyahow dushiyo daruurta ka soo lushan darxumo hoostaada tal lugiyo darandoorku maray taasina waa qodob mid kalena waan hayaa mid kale wada haysaa waxa weeyaan taklan waxa ka hadlaysaa markaan tagdarinay taageerada dhallaankiyo takulaynu baanin darbi jifkii tuula tobiyaha la marayo togo iyo banaanada todob soo hilaaciyo dhaxamuhuna tumayeen ruuxii wax noo taray iyo kaana tabi jirin taariikhtay ku sugan tahay tadayo timaadana tusaalooyinkoogii waxaan tilmaantaa ugu daray horumarkaan tisqaadiyo tuso tacabka loo huro kii turuntu roodow tala way ku seegtee tobii habboona inaad toobad keento tisata habboonayd waxaad tirisay heeso iyo gabayo la xidhiidha nolosha darbajiifta oo u afayeen tahay ma jiraan dhanka hasaawaha ama jacaylka heesaad ka tirsay hasaabaha waxaa jira hees aan yaroo gaaban aan soo siiyey oo markaa dee aan doogun ka soo qaatay jacaylkii iyo himiladii inkastoo waqtigu ii saamax waayey gabadhaan jeclaado aan jacaylku waa wax jira moogtahay waa muhiim laakiinse haddana waqtigii baa adag maadaama dee jacaylku ku qabanayana halkii dee qalbigii jacaylkii markaan gabadh arko hamigii baan gabadhii inaan u tago ama aan ku soo hamoodo ama aan jeclaado ama aan la hadlo ayaan ka khashoonaya waayo because waxba ma hayabadii anigii baa farmaran marka jacayl ma qaban karo marka doog baan ka soo qaato waxaan idhi jacayl waa mid ubaxdo ka baxayo midhihiisa la hurin karin cashaq waa balaayo xididada wadnaha iyo dhigooy dhaqaaqo jacayl waa mido marka jacaylku maan ka soo qaato dee labada eray baan tiriyo in kale aanoo isla ku sii dar ayaan inan aad u qurux badan arko inantiina dee waxaan kula hadlabo waayo because jaybadeydii baa gacan lacagan ku ayaan way inantii waxay u baahan tahay shaah loo shubo ama kafay aad hotel gasho oo aad la sheekaysato xogtiisa weedaasataan ka bacdi hamigii iyo noloshii aad isla gashaan iyo noloshii dheereed ee jacaylka marka waqtiga wallahi saamaxi waayo walaal aad baad walaal ninkuna u mahadsantihiin